halkan waxaa ku haysanaa hal xabo basal ah, baamiyo 7 xabo 8 xabo inta qiyaastaada iyo dhowr xabo toon ah. toontan hal xabo weyn ka qaadanaysa ama 2 xabo yar yar. Aan hadda 2 xabo yar yar qaadan doona. Mar walba waxaan idhahaa basasha iyo toonta hal iyo hal yaa laga badin maxaa yeelay maqaarka xanaajiyaan ama kuleel ay keenayaan. intan waxaa ku haysanaa karootada 2 xabo waa ka dhigi kartaa caadi waaye ama hal xabo weyn kuugu filan. yaa jecel maaska oo dharara isniin iyo khamiis walba waxaan leeyahay gabdhahayga guuleysta. intaasna si gaar ah niigu dhiirigelinaa maadaama aad jeceshihiin ama aad dharartiin isniin iyo khamiis inta laga gaarayo timihiina ka muuqanayaan hadduu ilaahay yiraahdo. mar walba dadaalkiina uu guuleysana insha Allah wuu hirgalaa. haddana waxayna jarjaranay waxaa rabaa kaliya inaa isku wada shiido. markii la shiido iyo markii la kariyo farqiya u dhaxay. markii la kariyo waxaa laga yaabaa maadooyinka qaar inay dhintaan, laakiin markii la shiido sheyga markaas nafaqada ku jirto dhan way ku kulmayaan. teedi kale waxaan ii xasuusinaa in timaha aad soo diyaarsatiin ka hor inta aadan mask diyaarinin aad soo kuuskustid. teedi kale waxaa samaysiin shaambo ku dhaqa timaha haday wasaq yihiin, haday nadiif yihiinna biyo ku qooya maxaa yeelay timaha markay qoyan yihiin ayay wax ka qaadis badan yihiin marka ay qalalan yihiin. marka mar walba aan xasuusinaa inaad timaha soo qoysaan. teedi kale hadda waa wada shiidanayna kadibna wax yar saliid ah ku darsan doona. mar walba waxaan xasuusinaa inaad saliid ku darsatiin. teedi kale haddii su'aal ay weydiinaysiin isoo waca insha Allah gabdhaha cusub xasuusina maxaa yeelay fariimaha ina arki waa laga yaabaa xogaa fariimii ay hoos maraan, balse markay soo wacdiin waa ogahay inaa ani niidira shaqo ama inaa madax wax marsatiin isla markaana su'aal ay ka imaan karto. marka waajib waaye inaa qabto su'aalihiin ama markaas waxay weydiisiin aan iga jaahil bixiyo. soo dhawaada. marka haddana saliidiya ku darsanooya kadibna waa isku walaaqeena si fiican fahanteen saas yeelo insha Allah.